Asalaamu calaykum. Filimkan waxaa lagu magacaabay magaciisa Gold 2022 ayuuna soo baxay. Waxaana la tusayaa wiil lagu magacaabo Virgil. Wuxuu aad ula yaaban yahay qof la saaran tareenka oo runtii xaalad halis ah ku jiro. Asigana tareenka wuu iskaga soo degi. Kadibna wuxuu caawiyey qofkii tareenka saarnaayay. Naagtii aad ayay u xanuunsanaysay. Tareenkii ayuu ka soo degay boostajada tareenka ayuuna imaaday. Wuxuu arkay meel yar oo meherad ah. Meheradii ayuuna aaday. Waxaa fadhiyay nin la yaab leh oo wuxuu weydiiyey waxaan u baahanahay suuli ayuu ku dhahay. Ninkana si la yaab leh ayuu ugu jawaabay wuxuu dhahay gadaashaada dambe ayay ku taala suulida. Waa soo baxay Virgil oo wuxuu soo aaday dhanka iyo suulida. Suulidana waxay ahayd mid aad u wasaqaysan. Sidaas ay tahayna suulidii ayuu soo galay. Kadibna xaajadiisa ayuu halkaas ku soo gutay. Waxaana la tusayaa suulidii oo ka soo baxay Virgil. Kadibna nin saaxiibkiisa ah ayuu soo raacay oo darawal ahay. Kadibna wuxuu u soo waday dhankaas iyo saxaraha. Maadaama Virgil oo ahay nin raadinayo dhagax aad iyo aad runtii qaali u ah. Saaxiibkiisna hore ayuu u soo watay oo nin oday ah ayuu ahay. Kadibna wuxuu isku dayay Virgil inuu idaacad ka shito raadiyowga gaariga ku xiran laakiin odaygii ayaa u diiday oo saaxiibkiis ahay. Wuxuuna dhahay gaariga ayaa batteriga naga dhacayo. Way soo degteen oo gaariga ayaa lugta ka bajartay. Kadibna Virgil ayaa isku dayay inuu hagaajiyo. Waxay arkeen yey meel ku cunayso baqti oo meel yaali. Kadibna way la yaabeen oo sidaasi waxay yeydii ugu ceyriyeen xayawaankii meesha ku dhintay. Odaygii ayaa soo fiiriyey halkiina way iskaga soo tageen oo socodkoodii ayay hore u sii wateen maadaama ay raadinayeen dhagax aad iyo aad qaali u ah. Habeenkii meesha ayay ku xirteen. Kadibna halkii ayay dab ku shiteen oo sheeko ayay meesha ku galeen. Kadibna odaygii saaxiibkiis ahay ayaa wuxuu ku dhahay saaxib meeshan waa inaan iskaga tagnaa. Kadibna waa ka soo tageen oo markaan Virgil ayaa gaariga wado. Odaygii saaxiibkiis ahayna dhanka kale ayuu fadhiyaa oo uu nasanayaa. Siday u soo socdeenba waxay imaadeen meel oo gaariga ayaa xoogaa hakaday oo cilad ku imaaday. Kadibna Virgil ayaa soo baxay asigoo aad runtii u xanuunsanayo. Meelaha ayuu iska fiiriyey kadibna wuxuu imaaday meel uu ku ogaayay dhagax oo runtii aad iyo aad qaali u ahay ayuu arkay. Kadibna odaygii saaxiibkiis ayuu u wacay wuxuu dhahay kaaya halkaan imow dhagaxii ayaana sidaas ku wada arkeen oo saaxiibkiis ayuu u sheegay wuxuu yiri dhagaxan waa dhagax qaali ah aan meeshan ka soo baxsano. Dhagaxii ayay isku dayeen inay halkii ka soo saaraan oo waxay soo qaateen badiilo si ay u fagaan dhulka uu ku jiro dhagax maadaama dhagax qaali u ahay. Waxay isku dayeen inay banaanka soo saaraan laakiin way soo saari waayeen oo banaanka way u soo bixi waayeen. Waxaana la tusayaa ayagoo aad u daaleen oo dhagaxii ka quusteen laakiin mar kale waxay sameeyeen farsamo kale oo gaariga ayay ku xirteen si ay u soo saaraan laakiin taasna way ku guul dareysteen oo dhagaxii halkii way ka soo saari waayeen. Waxay aad iyo aad u qodeen godkii si ay u soo helaan ama dhagaxan ku soo saaraan laakiin way u noqon weysay. Habeen ayaa la gaaray qoryo ayaa iska soo qaateen halkii ayayna dab iskaga shiteen oo dhagax agtiisa ah. Halkii ayayna ku sheekaysanayaan labadooda oo dabkii ayay shiteen aad ayayna ugu farxeen. Odaygii saaxiibkiis ahay Virgil ayaa wuxuu ku dhahay saaxib halkaan kama bixi karno dhagaxan waa muhiim inaan qalab helnaa. Sidaas darteedna adiga halkaan ayaa joogaysaa aniga ayaa baxayo waxaana keenayaa alaab aan ugu baxsan karno dhagaxan ayuu ku yiri. Virgil runtii aad ayuu ula yaabay maadaama meesha cidla ay tahay saxarana tahay oo aanan waxba laga helaynin hadday naqal hayn biyo iyo wax walbaba lagama helayo. Marka ninkii saaxiibkiis ahaa sidaas ayuu ku qanciyey Virgil oo wuxuu dhahay saaxib waayahay hadalkaaga waa yeelay halkaan ayaana joogayaa sida ugu dhaqsiyaha badanna igu soo laabo. Habeenkii sidaas ayay ku sheekaysteen subaxdiina biyihii uu cabi lahaa iyo meesha u dhigay odaygii saaxiibkiis ahaa. Kadibna wuxuu dhahay saaxib foonayahan qabso igala soo xiriir markii aad wax dhibaato aad la kulanto amba aan ka soo daho waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan isoo wacdaa. Virgilna waayahay ayuu ku dhahay halkii ayuu wax iskaga xirxirnaya oo wax ku diyaarsanaya. Qoryo ayuu soo qaatay kaligiis ayuu meesha ku noqday. Habeen ayaa la gaaray si tartiib raashin yar oo saaxiibkiis siiyay ayuu meesha ku cunayaa. Meesha ayuu waardiye ka yahay. Waxaana la tusayaa asigoo hurdo ka soo kacay oo runtii qorax hayso. Kadibna biyihii ayaa dhammaad ku dhow oo biyo fiican oo ku filan ma haysto. Aad ayuuna ula yaabay wuu soo cararay oo wuxuu soo aaday dhankii iyo taleefanka xaggiisii.
kadibna wuxuu isku dayay inuu saaxiibkiisa waco laakiin wuu u geli waayey. Wuxuu meel dheer ka arkay diyaarad burburtay. Diyaaraddii burburtay dhankeeda ayuuna soo aaday Virgil oo alaab amba wax oo cunno ayuu ka raadsaday laakiin wuu ka waayey. Ugu dambeyn wuxuu isku dayay inuu ka qaato qalabka jajabtay ee diyaaradda. Diyaaraddii alaabta ayuuna soo qaatay, halkii dhagax yaal agtiisa ayuu keensaday. Kadibna wuxuu ka dhistay meel oo seexdo amba uu ku nasto. Xoogaa ayuu joogay meeshii, kadibna dhagaxii ayuu fiiriyey wuxuuna yiri goormee soo bixi doontaa, oo dhagaxii ayuu kaligiis ayuu la hadlayaa. Dhanka kale waxaa haddana nala tusayaa Virgil oo dhagaxa jab yar ka soo helay. Kadibna saaxiibkiisa ayuu wacay inuu akhbaartaas fiican u sheego ayuu rabi. Laakiin saaxiibkiisa taleefankiisa mar walbaba uma gelaynin. Taasna aad ayuu ula yaabay oo murug ayay ku qabatay. Wuxuu sameeyo ayuuna gari waayey. Virgil oo dhagaxii jabkii yaraa soo qaatay ayaa wax iska imaaday dhankaas iyo halkii dabka ugu shidnaayo. Kadibna yey ayaa soo weerartay. Yeydii ayuuna iska caabiyey oo ugu dambeyn yeydii waa ka laabatay. Biyihii oo yaraa oo haysta ayaa dhammaad ku dhow. Kadibna wuxuu arkay mas soo weeraray. Maskii ayuu rabay inuu dilo laakiin wuu ka badbaaday oo maskii dib ayuu u noqday. Wuxuu ku soo laabtay qaybta iyo diyaaraddii burburtay. Diyaaraddii burburtay ayuu ku soo laabtay. Wuxuuna arkay qof ayuu meel dheer ka arkay. Aad ayuuna uga cabsaday. Diyaaraddii ayuuna ku soo dhuuntay. Waxayna ahayd naag runtii laga cabsanayo wejigeeda oo saaxirad ah. Aad ayuuna ugu naxay. Kadibna waxay dhahday halkan maxaa ku keenay. Asigana wuxuu ku jawaabay aniga halkan waxbaa ka raadinayaa. Ayadana waxay ku dhahday halkan lama imaado oo naftaada miyaad nacday, halkan maxaa ku keenay. Asigana runtii hadalladaasi waa ku xumaaday oo aad ayuu ula yaabay naagta. Waxayna tiri meeshan iskaaga tag haddii aad naftaada jeceshahay. Aad ayuuna ula yaabay. Asiga waa ka soo tegey. Ayadana way ka soo daba lugaysay oo waxay isku soo raaceen dhankii oo degnaay. Kadibna waxay fiirisay alaabtii meesha u taalay. Waxayna isku dayday inay alaabta ka baabi'iso. Asigana aad ayuu u xanaagay Virgil. Kadibna bir ayuu madaxa ugu dhiftay. Islaantiina sidii ayuu ku dhimatay. Boorsadihii ay wadatay ayuu wax ka baarbaarayay laakiin wax fiican kama helin. Sidaasna wuu jiiday, god ayuuna ku riday. Waxaa nala tusayaa nin meel dheer ka soo fiirinayo. Kadibna yey ayuu arkayaa oo soo weerarayso. Kadibna wuxuu soo qaatay alaab oo markaani dab ayuu shitay. Habeen ayaa la gaaray. Biyihii aad ayay markaani biyihii way ka dhamaadeen. Sidoo kale raashinkiina way ka dhamaadeen. Waxaa nala tusayaa asigoo hurdo ka soo kacay. Taleefankan ku orday. Saaxiibkiisa ayuuna wacayaa markaan. Saaxiibkiisna taleefanka kama qabanayo oo taleefanka ma u galayo. Taasina la yaab ayaa ku naqatay oo wuxuu sameeyay ayuu garan waayey maadaama haraad tir badan oo hayo. Wuxuu meel dheer ka arkay gaari. Asigoo aad uga cabsanaya gaarigii ayuu ka dhuuntay. Si lama filaan ahna waxaa ku dhacday dabeel. Asigoo qoryo soo wato ayaa waxaa kacday duufaan aad u xooggan. Duufaantii ayuuna inuu ka soo ordo isku dayay laakiin way u suurtageli weysay. Duufaantii ayaana dhammaan wixii agagaarkiisa yaalin dhab burburisay. Asigana si lama filaan ayuu dhulka ugu dhacay. Waxaana ku dhacay geed aad u weyn. Runtii geedkii ayaana dhaawac weyn u gaarsiiyey. Carrada ayuu ka soo hoos kacay. Bir ayaana ku jirto calooshiisa. Kadibna birtii ayuu iska saaray. Asigana waa soo baxay oo dhankii iyo dabkii xaggiisa ayuu soo aaday. Dhankii iyo dabkii xaggiisa ayuu u soo sikanayaa mar walbaba. Kadibna wuxuu arkay meel yaroo dab yar ka shidan. Birtii ayuu iska saaray. Dabkii yaraay ayuu wuxuu sameeyey intuu dabkii yaraay soo qabtay bir ayuu meeshii dhaawac ahayd iska saaray si uu xoogaa ugu sii nafiso xanuunka daran ee haayo. Waxaana la tusayaa asigoo iska jiiftay oo markaana xaaladiisa aad u adag tahay. Kadibna wuxuu arkay naagtii saaxiradda ahayd ee oo dilay oo korkiisa taaganba. Aad ayuu u naxay. Wuxuu soo xasuusanayay. Kadibna waxaa la arkaa asigoo biyo la siinayo oo naagtii ayaa biyo siinaysa oo xaaladiisa halis ayay ku jirtaa. Naagtii ayuuna arkaa mar walbaba oo hortiisa taagan. Saaxiibkiisa ayuu wacayaa oo waxaa la joogaa waqtigii ugu dambeysay ee noloshiisa. Kadibna naagtii waxay ku leedahay halkan qof yimaado oo ka badbaado ma jiro ee maxaa ku keenay. Adiga naftaada haddii aad rabto halkan waa inaad iskaaga baxsataa oo ka tagtaa maadaama aan aniga rabin in aan adiga ku dilo. Sidaas darteedna aan biyaha ku siiyo ayay naagtii ku dhahday. Asigana aad ayuu ula yaabay. Yeydii ayuu mar walba arkayaa maadaama yeydii ay rabto inay ninkan cunto oo ka takhalusto. Aad iyo aad ayuu ula yaabay. Xaaladiisa halis ayay ku jirtaa. Wuxuuna ku celcelinayaa lambarkii saaxiibkiis. Saaxiibkiisna taleefanka ma qabanayo. Ugu dambeyntii yeydii ayaana la tagtay oo sidaas ayaa lagu cunay. Waxaana meel dheer ka fiirsanayo saaxiibkiis oo waxaanoo dhan asiga ayaa ka dambeeyey maadaama uu rabay keligiis inuu qaato.
dahabka meesha yaalla ee dhagxinta kadibna baabuurkiisa ayuu soo qaatay wuxuuna u keensaday mashiin lagu bixinayo dhagax meesha yaalla asigana si lama filaan ah waxaa ku dhacay gamoon xoog badan amba filaar xoog badan ayaa ku dhacday kadibna sidaas ayuuna asigana ku dhintay waxaanoo dhanna waxaa ka dambeysay naagtii saaxiradda ahayd ee halkan ku sugneed waana tana ayada ayaa haddana la tusayaa ayada ayaana halkaani xoreysatay oo qof halkan yimid oo ka badbaaday ma jiraan hore ayayna ugu sheegtay saaxiibkiis oo yeydii cuntay asigana sidaas ayuu ku dhintay ninkii kale oo darawalka ahayna oo saaxiibkiis hagariyeyna asigana sidaas ayaa lagu dilay labadoodaba halkaas ayay ku dhinteen filimkana halkaas ayuu ku dhammaaday